ku dhawaad 1500 oo qoysaska hay'adda daryeelka iyo xuquuqda raabta magaalada Baydhabo qeybida soolarada iriida ka shaqeeyo way banameelasay soolarada ka qeybiyay gobro ku haytay wasiirada raabta xuquuqul insaanka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya madaxda hay'adda daryeelka iyo xuquuqda raabta markii magaca Lahangaabilanka Sawoko iyo hay'ad ka shaqeeysa samafalka waana ku howlgaas deegaanada Koonfur Galbeed way bananta badan ka shaqeeysa sidii daryeel in hanlaayeen raabta Soomaaliyeed qaar ku mid ah madaxda hay'adda iyo TV Koonfur Galbeed oo ku warami walyaabo ay qabatay hay'adda iyo tirada qoysaska ee geeka soolarada idinka shaqeeya way qeybiyeen wacyigelinta uu ku soo bino meel raayis weeyada kaamunka meelon konton kaamil iyo soqol sagaal way ba kala qaybiyaan raashin iyo waysiyaan dadka nugul dadka oo dhibaatooyinka qaba ayaa meeshaan raashin alwal iyo dal badan yaani ilaa 300 qof yaad siini raashin soo iyo cunto iyo walaad kun badan siini oo qofkiiba dhan ilaa $100 qiimo dhan iyo lacag siini raashin siini haddana insha Allah degmooyin badan insha Allah ilaa 10 degmo oo kamid ah degmooyinka Hirshabeelle iyo Jubbaland iyo Banaadir inta saxda insha Allah kasii fadhayna waxyaabo badan oo hata assessment-ninka jaro oo qiimeyn badan oo soo biyaan baahida markaas meelun jirta yaatan insha Allah booliye kala doogno hay'adda muslim meelun ku qoran argahayto women and child care macnaha daryeelka xuquuqda iyo haweenka ururka daryeelka haweenka iyo carruurta women and child care organization worker wuxuu maanta halkan ku qabanayaa qaybin ama distribution oo qaybinayo financial ama solar antennas waxa la yiraahdo oo ku shaqeynaya cadceedda oo ugu talagalay haweenka iyo carruurta in habeenkii ay daartaan si ay u yaraato dhibaatooyinka la soo gaarsiinaya haweenka iyo carruurta oo Soomaaliya ku badatay dadka aan siinayno waxay gaarayaan 1500 oo qoys ay gaarayaan oo aan ugu talagalnay barnaamijkaas in looga faa'iideysto insha Allah taala ururka Woka ama Women and Child Care Organization waxa uu ka shaqeynayay labada sano ugu dambeysay maamulka ama state-ka Koonfur Galbeed sanooyinka dambena insha Allah taala waxaan rajaynaynaa in aan ka soo shaqeyno ururku waxa kale oo ka shaqeeya Jubbaland ayuu ka shaqeeyaa wuxuu ka shaqeeyaa Hirshabeelle iyo gobolka Banaadir marwa nadiifaha jaarmi wasiirada raabta xuquuqul insaanka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo ciidanka mahanagda hay'adda daryeelka iyo xuquuqda raabta howlo fayl bulshada oo hayaan iyo juhdiga marwalbiya ka biyaasay hay'adda yartii daryeelka xuquuqda raabta Soomaaliyeed dalankii hooyada ee ka shaqeeya deegaanada Koonfur Galbeed saasoo kale waliba ka mahadnaqay adeegan iyo geedkiisii qoyska beerow 500 kunti number eedan badan laakiin markii la fiiriyo dadka barakacayaalka mise dadka danyarta ku sugan Koonfur Galbeed gaar ahaan degmadana tabuuna waa waliba korne waliba lan baahiya inay oo gacan mideersi laakiin haddana ma sha Allah idan faraxsanna number intaas beerow iyo adeeg noocan siyan adeega solar light mise waxyaabahan leebka ka shaqeeyo solar masaaciida eedahan waan faraxsanna waliba waqti saasoo kale ku asdaan ay iyo gudahaan degmooyinka Koonfur Galbeed maadaama Koonfur Galbeed mise degmiyada iniyo gacantiyo deersiyo iyo ka tala galan iniyo ugu yaraan oo iyo shabeelada hoose man hal degmiyo ku jeeran si dadka oo ka aftarsadaan reer Koonfur Galbeed waxyaabaha hay'adaha shaqeeyo halo daryeelka dadka maamulkuna dareena adeeg la haynto wada deersina deero korna eedeedan kama asantiin shaqadiisa hay'adda bulshada saasoo kale gaar ahaan sidiisan garwaaqsanteen inaysan dadka danyarta oo sida qaaska ee mise duruufo qaaska haysado inaysan gacantiin deersidaan si kuma lagaan oo qadaro guud ahaan afka maamulka iyo gaar ahaan wasaaradda haweenka horumarinta gobolka Saaxil maamulka Koonfur Galbeed waliba si fadaale insha Allah anoo guud ahaan baahan garoweedo ka shaqeeyo deegaanada Koonfur Galbeed runtii dhibaatada jirta ama dhibaatada haysata dadka reer Koonfur Galbeed oo la horumariyay gaar ahaan daryooga baraka ay meelo fofokooy adeegyada oo baahan yihiin waliba kamida caafimaadka iyo walbarashada runtii waliba argaas reer eedan daruufaysan gaar ahaan dhinacyaalka hadii la fiiriyo qoys afar unug haysado hadii aad aragtay kaaraki hore masabili sabti oo
qofka bini'aadamka aan ku filanayn haddii la qoro macna masuubiya salaatiisa wala uma baahan waliba wal oo sii jiri doono qofka mustaqbalka ku kaabow sida walbarashada ciyaalka oo kale inuu yahay saara inay oo nolol sii jiri doonto mise waxyaabo oo iskaashatooyin ama lan abuur dadkaan reer koonfur galbeed wala la kasoo waliba beeraleyda dad beero macnaha wax soo saarka beero ku faylo intuuna sameyn aseentooyinkaas tumun qofood mislawaatan qofood nasbirow beero tum abuurada walaay haka saartan laga soo naga beesana laga sii kaash forward something like that afka qalaadna la keeno marka in la sameey Faisal Dawson KGS TV magaalada Baydhabo.